الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خير من عبد الله وعلى آله وصحبه سادة الورى في كل وقت وحين. أما بعد أيها الأحباب، dhammaan golaha sare ee culimada diinka ahlu sunna wal jamaa, gudoomiyaha dalladda macallimiinta quraanka kariimka ah, gudoomiyaha ahlu sunna wal jamaa ee gobolka Banaadir, gudoomiyaha ansaaru sunna, madaxda daraa'iqda mudarrisiinta macallimiinta quraanka kariimka dhammaantood, بعد صحافة iyo hay'adda CCD madaxdeeda inoo joogto dhammaantiin waxaan leeyahay mar kale assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. bacda taxiya, runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in culimmada Soomaaliyeed ee ahlu sunna wal jamaa ay hay'adda CCD gacan ku siiso sida caadadeeda ahayd si joogto ah in ay waajibkooda diiniga ah ee wacyigeliyeen ay fuliyaan. waxaan leeyahay marka hay-addu hana jirto hana joogto waanay mahadsan yihiin. culimmada waajibkoodu waxa waaye inay xumaha zuuliyaan, wixii alla wixii xumaana inay zuuliyaan, wixii wanaagana ay faraan. taas gacanta u baahneedna waxa sii hoysay CCD. haddii aan haddaan usoo laabno mawduucayna maanta mawduuc aad u ballaaran oo aad u dhaxalgal ah, laba dhinacba waa ka fiican yahay. horta waa sidee guud ahaan dalkayna iyo dadkayna aan afkaarta xunxun uga badbaadin lahaynay. ay tag ee sareebaa leeyahay kol haddii gobana uu tagay, haraagi uu ka tagay, fikirka uu ka tagay, isaga iyo saaxiibada kula taagan sidii shacabkeena uga badbaadin lahaynay. suntaasi marka ma ugu horeysa ee galayso ugu dara waa ardada, waa ardada quraanka kariimka, waa haweenka. muga cunuga yar in oo soo barbaaraya in suntaas laga hortago qofka ugu habboon oo fikirka saxa cunuga barbaarihaya gaarsiin karana waa macallinka quraanka kariimka. marka waa munaasabo caadi ahayn oo aad muhiim noogu ah in macallimiinta quraanka kariimka oo ilmahayna gacanta ku hayo quraanka noo baraayo oo waalidka labaad ahaa aan fursad u helno inay ilmaha ku barbaariyaan caqiidada saxda ah, isla markaana caqiidada ah tan wax baabi'isa oo dalka baabi'isa, dadkana baabi'isay oo kooxda shabaab ay dalka keeneen, in ay fikirkaas oonan u gudbin kansarka ah oo ardada waa wax muhiim ah. saa daraaddeeda haddii aan macnaa in fikirka la cirib jaro in loo istaago waa soo dhawaynaynaa haddaan nahay golaha sare diinka sunna jamaa. in macallimiinta wasiiladda ay noqdaanna aad u soo dhawaynaynaa, waa dadka ugu habboon. in hay'adda CCD ay gacan ka geysatana waa tan aan u baahannahay oo hadda wada ugu mahad celinaynaa. maxaa yeelay nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam man lam yashkuri naas lam yashkuri illah. qofkaan dadka u macnaa haddii ay gacan siiyaan wax u taraan aan u mahad celin, hadda ilaahayna u mahad celi maayo. saa daraaddeed waxaan leenahay hay'adda CCD waa mahadsan tahay. culama alla waajibaan hor yaala, waajibkan hor yaala waxaa waayey sida soonka iyo salaada iyo sakada xajku ay waajib noogu yihiin, waxaa kasii muhiimsan ama la muhiimsan ilaalinta caqiidada. qofka hadduu caqiidada beelo waa u dhamaatay, qofka hadduu caqiidada beelo waa u banaatay. ma ii sheegi kartiin caqiidada ka xun ruux muslim ah ahlu tawxiid ah masaajidka ku jira banaanka nin tawxiid sheeganaya islaan sheeganaya inuu ku sugo oo yiraahdo ka soo baxo wadiya heerkaas
عقيدة نوعاسة أو قف كاسل فيه ما يشاي كرتي إن قفكو أو آبيله إن داد مسلمة اسكو قرحيه أو عبادة أو أركو ما يشاي كرتين إن قفكو أصيغو مجع الدين تشاقناي وح الله وحي الدين تحرم يسي وقفك بنادك إلا الدلو إلا الدعو إن عمل يسا لبحث قدبو عندك يسا لبحث قدبو أو بنا يستع إلا كواحد أنا وحنكون غان تدك إلى الدلان نفترض الدلان دكتور الدلان هاللغان سي جماعية إذا لوك العابين وعيال عرور أقوياهن أو كل شعب إلى سوق الحيو أرضي نورها إلى لد الروحون غير حدنا إلا وفانو أو الحمد لله اللي حديدين بلاس لقالوا أو معاصد على قانه وأخون غير إنا لله وإنا إليه راجعون وعنكون غير وقفتهم دعويك حنوك بدل وقلوبت الصوماليين أولك قوينين ويتدعي هرقايا سامها أردديني وحبرشد هذه إيه والدينتي إلا بابيي اسمه مركاسنا بركة بينه شرط أفاينك شرطها أو شرط أفاينك كأها على محمود راجع هو الحمد لله ده هاي دتك هالعاي دتك هالعاي هو الحمد لله ليه وأقول سنة وده هاي وهذا غيرين تاريخ هذا والميلان وعتدعي hotelka la yiraahdo Shano oo aqoonyankii iyo macallimiintii ardadii qalin jibinaysay 3 October الإحسان صار لنا عافيات يوالدكودي iyo indhihi Soomaaliya dictator shaykh iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii wax garadkii Soomaaliya lagu baabiyay haddana la sheeganayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wadabtii wixii ka dhacay beledweyne inta soo jeer oo ragii qaali ahaa lagu baabiyay oo dhor isyeetanka ahaa oo lagu isku qaxiyay wadabtii wixii ka dhacay hotel Muna wadabtii wixii ka dhacay xaruntii maxkamadaha madaxtooyada barlamaanka iyo meelo kale hadda walaalayaal dadka noocaas u dhaqmaaya jaasintooda way bilaabatay jaasintooda man yazra' sharran yahsud nadama qofkii shar abuurta shalay ayuu gurtaa godana waxa uu abuurtay inuu dadka qarxiyo waana la qarxiyo inna lillahi wa inna ilayhi shaki igama jiro inuu haddana naar ku jiro shaki igama jiro inuu haddana naar ku jiro maxaa yeelay ficilkiisu ma ahaynin mid macaasi ku simane istihlaal oo yahay wuxuu xalilanaayay banaysanayay dhiiga dadka muslimka diinta uu bedelayay waxay ahayd in gacanta oo Soomaalida ku dhinto waxay ahayd in cadaaladda horteeda maxkamadda inta la geeyo la qabto laakiin وصار ربنا سيد إلهي حب مسك رواي إلهي نجعته أو كو أرسنا أسايقا نبي وحور عليه الصلاة والسلام إن الله ينتقم من الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما إلهي ظالم هو كأسدا نك لو ظالم هو كأسدا كيد من الله مدور كأسدا حديث كلا حديث كالشعر وحاجة أو من شاعر أو كقاطوع عليه وما من يد إلا ويد الله فوقها وما من ظالم إلا سيبلى بأذى ورمجت القعر إلا جعلت إلهي كسر رئيسا مرت ظالم إلا بك ذنبا أي لون امتحانا سبحانك الله جرتا من عانى ظالما صلب عليه قفك ظالم وكان ميو أصنع له عقابا ولا لا يعني هذا كلك كان مهمك فرنت عن فرعينه سوق بينا هدان هذول صار عمودين كرسون الجماعة وكل إلا لقى الشهر كل هذا الشباب أنت فكر كاسة آنسا وعمو باقي هدان عمود كرسون صار عمودين كرسون الجماعة إن الودل يكون سعدان ودسخلة التهي كان يسأل الله حدان إلهنا وتوبة كان دبك عسكر عفان ومدن عكر عفان وان كان قاضينا
dhalinyarada maskaxda laga khalday waxaanu leenahay ka faa'iideysta cafiska dowladda farta ka soo casho dowladda waxaanu leenahay dadkaasi aan laga arsanin si ayukuna ballanqaadkuna siisa waa muslimuun calaa shuruudihim oo u fulo oo dadka hala soo dhaweeyo hala darajeeyo haddana yaa dadka lagu darin haddana yaa dadka lagu darin kansarka ay qabaan intii laga tirtiraayo inta maskaxda hore laga dhaqaayo inta caafimaad loo helaayo waa in meel gooniya lagu xanaaneeyaa si gooniya loola macaamilaa taas dowladdaanu leenahay ayaguna waxaan leenahay warkaale weli baqaayaa jirta weli fursadaa haysatiin dowladdan wayna siisay shacabka soomaaliyeed cafis weydiista ilaahay weydiista ka soo hora qaladka aad ku jirtiin oo u soo laabta waddada saxda ah waxaan rabaa inaad si gaara u waco kuwa weli fikirkaas qandaraaska uusan ka dhammaanin oo waaga sii wada waa idin fahanay dadkayna ee diintayna qandaraas ma lagu qaadanayo dalka soomaaliya calankaa ka taagteen oo aad rabteen inaad ku qabsateen waa la diiday waa kaas dalkii hadda laynka qabtay fikirkiina culamadaa diiday oo waa kaas dhahay waa khalad ilaahayna waa diiday oo khaladkaas ma ogola waxaan idin leenahay ayuu waan hubnaa ajaanibtu inaysan soo noqonaynin oo wadamadoodii ayay ka soo carareen kuwa qandaraaska la galo danlaydaana soo noqon maayaane waxaanu leenahay waydin aragnee hadda meel iskaga taga dalka dadka oo aysinayaan waxaan leenahay ka soo hira waxaan rabaa inaa waalidiinka soomaaliyeed aan si gooniya ula hadalno waalidiinta waxaanu leenahay ilmihiina ogaadha dugsiga qur-aanka geehaysiin ogaadha iskuulka aad geehaysiin ogaadha jaamacadda aad geynaysiin ogaadha macalinka hadduu macalinka qur-aanka soo baxo macalinka kale cunuga leenahay ogaadhaan leenahay war cunugaagu ma ahin adoo hooyadiisa soo dhalay in la soo baro inuu kugu shahiido ma ahin in la soo baro inuu kugu shahiido ma ahin waa inaad ogaataa cunugu ma udurayso waaligow cunugaaga ma udurayso waalidiinta dadkooda shabaabka yahay ee taagan maxkamadaha ee dhahayaan cunugay waa halii soo dayo anaa hubo masaajidka u socday anaa hubo weliisa ma naqan war cunugaaga ma hubtiday cunugaaga intaan la soo qaban hubso oo haddii la soo qabso kadib hubsigiisa aadin dowladda waxaanu leenahay dadka aad haysiin si fiican ula dhaqmo oo mucaamilo fiican maxaabiis caadiyayna naqane kuwa shacab waa dadka dad bixid waxtara dalka ha laga dhigo fikirka ha laga dhaqo xorumahooda ha lagu wacyigeliyo waxay ku khaldanaayeen ha loo sheego ha lala fadhiisto oo culimada soomaaliyeed aan leenahay fursaddaas ay diyaar u tahay inay bixisee gacan ku siiyo amniga sugudiisa waa waajib diina waa arrin naga wada dhexaysa waxay ahlusunna wajamaaca diyaar u yihiin haddii macallimiin yihiin haddii ay gobolka yihiin haddii ansaar sunna ay yihiin hadday golaha sare iyo kulli ay yihiin ahlusunna oo dhan caqiidada saan wada midaysay ahlusunna jamaca waxay diyaar u tahay waxay dalkan iyo dadka lagu horumarinayo inay gacan ka geystaan waan ognahay inaan xuquuqdoodii aan la siinin oo leeyacan yihiin laakiin sida nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka thara arki doontiine afaratan arki doontiine waxa adinku aad leedihiin waxa adinka aad leedihiin ilaahay wadiista oo iska sabra waxa adinka linku leeyahayna gudta tiyay taagantahay culimada waxaan leeyahay dalka dadkaanu leenahay aan wada badbaadino waa mahadsantihiin waxaan rabaa mar kale CCD inaan mahad celiyo way noo firan yahay shirku qodobada aan noo qorane waa rajahay in si fiican oo qoto dheer aad uga dhihi doontiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu